munaasabadda xidhitaanka dufcadii shanaad oo tababar muddo uga socday xarunta halabuurka qaranka ee Somaliland Innovation Zone ayaa lagu soo gabagabeeyay magaalada Hargeysa. Tababarkan oo la xiriiray dhinacyada kobcinta tayeynta xirfadaha tiknoolajiyadda casriga ah ayaa waxaa ka faa'iideystay shaqaalaha hay'adaha dawladda, dhalinyarada jaamacadaha, haweenka suxufiyiinta ah iyo qaybaha ururada bulshada rayidka ah. Tababarkan waxaa iska kaashaday xarunta halabuurka iyo xafiiska maalgashiga ee Taiwan ICDF. Ugu horreyntii munaasabaddan waxaa ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda isgaarsiinta waxaanu ka waramay ahmiyadda ay xaruntani u leedahay Somaliland. waxaan aad u hambalyeeynaya markii koowaad ardayda caawa ku qalinjebisay koorsada kala duwan ee ay bixiso xarunta Innovation ama xarunta halabuurka Somaliland Innovation Zone. runtii xaruntaas oo muddadii ay jirtay ama dufcadani ay tahay dufcadii shanaad ee ka qalinjebisa xarunta muddadii ay jirtay muddadaas oo imika gaadhaysa muddo 2 sano ah ku dhow runtii muddada ardayda ka qalinjebisay ama ardayda wax ka baratay waxay gaadhayaan ilaa 1,200 arday. runtii waa xarun u aasaasan inay gacan qabato dhammaanba bulshooyinka reer Somaliland khaasatan magaalada Hargeysa iyadoo aad gaar indhaha u eegaysa ama aad u tixgelinaysa qaybaha kala duwan ee dawladda. agaasimaha xarunta halabuurka Suleekha Isxaaq ayaa ka warantay waxqabadka xaruntan iyo ardayda ka baratay xirfadaha kala duwan qaybaha ay isugu jiraan. xaruntan maanta halkan waxay noogu qalin jabinaya ku dhawaad 300 oo runtii bartay xirfado looga baahan yahay maanta suuqa Somaliland oo isleenahay way buuxin karayaan intaynu soo hayr gariisan lahayn shaqaale adduunka intiisa kale ee ka yimaada. waxa kamid ah waxyaabaha ay barteen inay programming bartaan oo maanta suuqa ugu badan waxa ka jira apps waxaan leeyahay dhammaan dadka had iyo jeer isticmaala tiknoolajiyadda xarunta halabuurka Somaliland waxay idin haysaa programmers aad u xirfad badan oo ugu iman doontaan insha Allah. waxa kamid ah dhalinyaradaasi arday iyagu la yimid fikrado hablo programmers oo maanta halkan inoo fadhiya, hablo suxufiyiin ay inoo fadhiya, dhammaantood waxaanu ka istaagnay qaybahan isleenahay tiknoolajiyadu way u baahan tahay. qaar kamid ah ardaydii dhameystay tababarkan ayaa iyaguna ka mahad celiyay muddadii tababarkan la soo barayay iyo aqoontii ay ka faa'iideen. anigoo ku hadlaya magaca ardayda qalin jabisay waxaan arrinkaas ugu mahadnaqayaa dhammaan ciddii ka qayb qaadatay wasaaradda boosta iyo isgaarsiinta. waxaa kaloo arrinkaa aad iyo aad ugu mahadnaqayaa dhammaan cid alla intii ka soo qayb gashay xafladdan caawa dhammaan wasaaradaha kala duwan iyo hay'adaha kala duwan dhammaantiin aad ayaad u mahadsantihiin. waxaan baranay haddii aan soo qaado model journalism iyo sidoo kale Photoshop taasoo ah model journalism-ka afka inuu ka fudud yahay laakiin markii aanu baranaynay uu aad iyo aad u wanaagsanaa waxaanu filayna waxa awal kombiyuutarada ma ku shaqayn jirnay. haddaba codsigaygu waxa uu yahay inta inaanay ku koobnaan oo waxa jirta hablaho kaliya maahina dhinaciina mada ee warbaahintana lagu soo daro. agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Cabdikariin Aadan Siciid, agaasimaha komishanka tacliinta sare Ibrahim Aamin Gadiid, gudoomiyaha ka hortagga aafooyinka iyo kaydka raashinka qaranka Faysal Cali Sheekh, dhammaan mas'uuliyiintaasi waxa ay bogaadiyeen ardayda ka dhameysatay tababarka xarunta Innovation Zone Somaliland. marka koowaad in loo hambaliyo dhalinyarada qalin jabisay ee tababarada kala duwan ka qaadatay xarunta waxa kale oo dhiirigelinayna runtii maadaama tababarada noocan ay nagu cusub yihiin isla markaana Somaliland Innovation Zone oo kale ay tahay xarumaha naadirka ku ah Somaliland iyo guud ahaan Geeska Afrika inaynu ku baraarugsanayno waxqabadkeeda isla markaana runtii aynu dhammaantaan haddii dawladda nahay qaybaha kala duwan qayb wax ka qaadano ka wasaaradahan waxaan ku faraxsanahay marka laga yimaado qaybaha kala duwan ee bulshada iyo dhalinyarada halkan joogta in maxay tahay qaybihii saxaafaddu ay qayb ka yihiin tababaradan. waxa weeyaan dardaarankaygi waa nabadda hal ilaaliyo cilmigaasina waa in uu difaacaa nabadgelyada dalkeena oo uu ka difaacaa inaka darab awdka ee dibadaha jooga carruurtii geystay maanta jecel inaad wax dumisaan ha noqoto mid u jawaabta aqoonta aad baranaysaan. waxa laynoo soo mariyay waa warbaahinta iyadoo cilmiyeysan baad maanta idinku barateene
wax waddanka horumarkiisa ka tarjumaya ina tuso oo ta iyagu ay soo direen ay baahinayaan ha beddesho aqoontaasi. farxad weyn bay runtii noo tahay inaannu maanta goobjoog ka noqonno farxadda ay ku dhammaystirteen 285 arday oo ka kala socda hay'adaha dawliga iyo jaamacadaha iyo saxaafadda oo bartay cilmigan tiknoolajiyada. geestiisa munaasabaddan waxaa ka hadlay ambasadorka dalka Taiwan u fadhiya Somaliland Mr. Allen waxaanu ku dheeraaday iskaashiga labada dawladood ee Somaliland iyo Taiwan ka dhex. It is delighted to take part in the graduation ceremony for the tech development programs. I would like to congratulate all the awardees. Hambalyo, hambalyo, hambalyo. Somaliland Innovation Zone, I believe, will continue to serve as the hub of ICT training for government officials and also for the people who are interested in shorten the digital gap. gabagabadii munaasabaddan waxaa ka hadlay wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta mudane Siciid Xasan Habane iyo wasiirka wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda Somaliland Cabdiwali Sheekh Cali Sofi waxaanay shahaadooyin guddoonsiiyeen ardayda dhammaysatay tababarkan. marka hore ilaahay baa mahadlaynoo suuro geliyay halkan inagoo nabad qabna caafimaad qabna u dabaaldegayna daayarta halkan wax ku baratay inaynu waxa weeye dhiiri gelino aad iyo aad ugu mahadnaqayaa u bogaadinayaa intii ka shaqaysay oo dhan oo ay ugu weyn yihiin wasaaradda tiknoolajiyada iyo safaaradda Taiwan Somaliland Saran with your leadership thank you very much for the support that you are giving to support Somaliland youth. si guud waxa weeye koorsada la qaato waa koorso la xiriira xirfad ama xirfadda technology-ga haddaanad u baran haddaanad waqti gelin oonad baranna xirfadaasi horuma marayso marka waxaan halkan ugu baaqaynaa cid kasta oo rabta wixii awood ay leedahay xaruntu waxay diyaar u tahay gaar ahaan daayarta imika ku jirta jaamacadaha iyo kuwa dhameeyayba inay fursadaha ka faa'iidaystaan qayb ka noqo kuwa wax sameynaya inaad noqoto. ugu dambeyntii waxaan halkan uga mahadnaqayaa xafiiska Taiwan ee dalka furan waan leeyahay Mr. Allen I would like to extend my deepest appreciation and sincere gratitude to the esteemed representative office for Taiwan government in Somaliland. Thank you so much.